Dulqarnayn waxa uu ahaa nin boqora oo uu Eebbe makansiiyey dhulka kuna manaystay cilmi, xikmad iyo awood. Waxaa la soo wariyaa inuu ahaa nebi, hase ahaatee waxa uu badan yahay inuu ahaa nin boqora oo ah adoon wanaagsan. Qisadiisu waxay ku bilaabmaysaa safar uu ku aaday galbeedka adduunyada, waxaanu arkay qorraxda oo ku dhacaysa meel dhooba ah. Goobtaas waxa uu ugu tegay qoom iskugu jira dad xun iyo dad wanaagsan, kadibna Eebbe ayaa ku dhahay, Dulqarnaynow waa inaad cadaabto ama ka yeelato wanaag, wuxuuna yidhi ruuxii dulmi fala waanu cadaabi, markaasaa loo celin Eebbihiis wuuna cadaabi cadaab daran, balse ruuxii rumeeya oo fala wanaag wuxuu mudan abaal fiican, waxaanan u dhihi amarka naga fudayd weeye. Sida muuqata Dulqarnayn waxa uu dareensanaa in marka qoomkan uu ugu yeero dacwada iyo tawxiidka inay u kala qaybsami doonaan laba qaybood, qolo ka hor timaada dacwada iyo qolo adeecda oo rumaysa tawxiidka. Markaa ciddii rumaysana waa uu wanaajiyey, xagga Eebbana waxa ay ku leeyihiin abaal weyn, balse kii ka gaalooba ee adeeci waaya dacwada waan ciqaabi, waxaana loo celin maalinta qiyaamo Eebbe, waanu cadaabi cadaab daran. Markuu Dulqarnayn dhammeeyey safkiisa galbeedka adduunyada, waxa uu kacay dhanka bari. Markuu gaadhay qorrax ka soo baxana wuxuu arkay iyadoo ku soo baxda maalin kasta qoom aanaan lahayn wax kaga beegaan qorraxda, oo qoomkaasi ma lahayn wax guryo ah. Qoomkan uu ugu tegay bariga waxay ahaayeen qoom badow ah oo aan lahayn maryo fiican oo aan jidhkooda asturaynin. Kadibna waa sii waday safarkiisii asagoo gaay dhul buuraley ah, waxaanu ka helay qoom ka duwan kuwii hore. Kuwaani ma aysan fahmayn luuqada Dulqarnayn, kadibna waxay ka cawdeen laba qabiil oo waaweyn, waa Yajuuj iyo Majuuj, waxayna fasahaadiyeen dhulka ee nooga yeel xireen gidaar ah si aynaan noogu soo gudbin. Waxaa cad in qoomkani aanay fahmayn luuqada Dulqarnayn, hase ahaatee si unbay ugu gudbiyeen cabasho ka dhan ah Yajuuj iyo Majuuj, kuwaas oo fasahaadiyey dhulka, cabsi weyna laga qabo inay laayaan dadka iyo maatadaba. Markaasuu Dulqarnayn ka aqbalay cabashadoodii oo waxa uu sameeyey sad ama xireen gidaar ah, kaas oo u dhexeeya laba buurood dhexdood. Waxa uu Dulqarnayn dalbaday birta xadiida iyo naxaasta si ugu sameeyo xireenkan. Markuu dhammaystiray xireenkii maysan awoodin Yajuuj iyo Majuuj inay ka soo baxaan, waxaanu yidhi Eebbe ayaa mahad iska leh, markay gaarto maalintii Ilaahay ugu talagalayna in ay burburtana way burburi. Dulqarnayn cidda uu ahaa runtii ma cadda, culummadu way isku khilaafeen cidda uu ka soo jeedo iyo xilliga uu xukumayey dhulka. Maxaa loogu bixiyey Dulqarnayn? Magaca ama naanaysta Dulqarnayn waxaa laga wadaa ruuxii geesaha u saaxiibka ahaa. Sidoo kale waxaa la isku khilaafay sababta loogu bixiyey Dulqarnayn. Qolo waxay ku tageen sababta loogu bixiyey ay ahayd inuu xukumay bari iyo galbeedba, halka kuwa kalena yidhaahdeen waxa uu lahaa taaj laba geesood leh. Xaguu ayuu ku yaalaa xireenka ama sadkii Dulqarnayn? Qolo ayaa ku tilmaamtay in xireenku ku yaalo gidaarka dheer ee mara dhulka Shiinaha, hase ahaatee xireenkaasi maaha mid ka kooban xadiid iyo naxaastoona. Kuwa kalena waxay ku tilmaamaan inuu ku yaalo Yaman ama dhulka Qowqaasiyiinta ee u dhow Badda Madow, laakiin sida xaqiiqada ah lama garanayo meesha uu ku yaalo. Allahu aclam.